madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ka qayb galaya kulan isdhexgalka bulshada lagu qabtay xarunta degmada Wardhiigle ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in askariga aan ilaalin xuquuqda qofka shacabka iyo waajibka loo idmaday oo la kulmayo talaabo adag isagoo sheegay in shakhsiyaadka ka tirsan askarta ee dilalka u geysta dadka shacabka la horkeeni doona cadaaladda waxa uu muujiyay madaxweynuhu sidoo uga xun yahay dhacdadii ay ku geeriyoodeen maanta laba qof oo rayid ah ninkii ciidana oo sharciga aan ilaalin oo nidaamka aan ilaalin oo aan ilaalin xuquuqda shacabka maxaan ku raahdaa loo sameeyay aan ilaalin sharcigu hortagi wuxuu shaqaystuuna leeyahay meel kasta uu galo qofkaasi waa soo qabanayna oo ilaahay hortiisa Allah u naxariisto labadii wiil maanta naga dhintay oo gacanteena ku baxay oo ahayd inaan difaacno oo aan ilaalin noloshooda ilaaha nolol ilaaliyeen waxaan u tacsiyeenayaa eheladoodii iyo caayiladoodii iyo faamilkoodii yaa u tacsiyeenayaa ilaahay iyagana jannadii si naxariistiisii ilaahay ha siiyo madaxweynaha ayaa sheegay in dawladdu aanay u dulqaadan karin in la abaabulo dibadbaxyo uu xusay inay gacan ku leeyihiin kooxaha qaswadayaal uu sheegay in dhibaato ay ku yihiin horumarka dawladnimada iyo dhaqaalaha dalka dawlad dimuqraadiyad baan nahay waxaan nahay dadka inaan u hogaamino nabad iyo horumar inaan u hogaamino oo aad biri soo doorataan laakiin mudaharaad aan sharciyeysnayn mudaharaad lagu burburinayo sharafka iyo sumcadda Soomaaliyeed mudaharaad ganacsatada looga burburinayo hantidooda ma yeelano dhowr qof oo qaswadayaal ah ma aha inay magac xumo siiyaan askarta ma aha inay magac xumo siiyaan dawladnimada Soomaaliyeed oo intay soo baxaan oo jidad ka qaadaan oo taayiro gubaan qofkii wax tabanaya ma aha cadaaladda iyo sharciga gacantiisa ku qaata ma aha inuu hantida shacabka Soomaaliyeed burburiyo ma aha inuu nabadgeliyo xumo iyo nidaam xumo u horseeda ma aha in cadawga aan la dagaalano oo argagixisada ah inuu gacan siiyo ma aha madaxweyne farmaajo ayaa shacabka ugu baaqay inay ka digtoonaadaan in kooxaha nabadiidka ee la dagaalamaya dawladdu ay kaga faa'iideystaan dhinaca shacabka rabshado ay ka dhaxuriyaan ha u dulqaadanina hana yeelina in la soo dhexdunto cadawga waa la dagaalanaa bannaanka ciidamada qalabkiisa ay kula dagaalamayaan goobo iyo aagaan ka qabsanay waana siyaariyanaa waana ku daba jirnaa ma aha intay la soo dhawamaraan oo dadka isku dhaxqariyaan oo ay ka faa'iideystaan arrintan oo kale ma yeelano dawladnimada dib loo dhigo ma yeelano dawladnimada dib loo celiyo waxaan u soo marnay dhibaato badan waxaan u soo marnay maxaan ku raahdaa dhibaatooyin aad fara badan baan u soo marnay hadda aan cagta aan saarnay wadadii inay naga leexiyaan ma yeelaysaan ma ogolaanaysaan dawladda Soomaaliya ayaa waqti ku bixinaysa sidii ay salka ugu dhigi lahayd nabad waarta oo ka hirgasha dalka Ali Baasha Cabdullaahi warbaahinta qaranka madaxtooyada Soomaaliya.